salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta mudanow caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xil walba oo idiin tahayba waqti wacan waayasan halka aad nagala socotaana waa sariicaad kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal horleh. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada iyo kamid noqoshayaha janalka iyo markaas sida weyn aad ugu xirantihiin intaba waan idinkaga mahad celinayaa. sharafi dushiina ha noqoto ayaan idin leeyahay meel walbood ku sugantihiin haddii ay tahay markaagii ugu horeysaad nala kulantana subscribe saar kambaleelka furta videoga laag gareeya siina sheer gareeya oo asxaab badan inoo gaarsiiya mahadsanidin mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin leeyahay. maanta muuqaalkeena muuqaalada kale waa uu ka xiisad iyo xaasad iyo xamaasad badan yahay. waxa ayna tahay arrimo runtii markii aad aragto dhinacna aad kaga farxi doonto dhinacna markaasi aad ka qosli doonto. waa la ishelay, waa la isku jilba laabtay oo dhulka ayaa la isla istaagay. qof walbana waxa ay bahasha u ekaatay weerar iyo weerar celin. waa lamaanihii qarniga, waa dadka ammaanta ku suntanaa. waxa ay maanta kala istaageen laba jiho oo yaab badan. ninkii odaga ahaa ee mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan fanaanada qiimaha weyn ayaa ishelay. weelaa laga soo dhaantiyey, waa laga soo caweeyey, waa laga soo baxay. dibadda marka la yimid arrimo waaweyn ayaa dhex maray. ninkii odaga ahaa waxa uu markaasi rabay inuu ku daarasho sameeyo, waa laga diiday laakiin waa lagu qabtay oo waxaa la yirimaynayo waxaa ma shaqaynayse wax ka bedelan la kaalay oo wax macquul ah oo aan kaa qaadan karo hodan ahaan ila kaalay. niyow kan waa kaa diiday, dib ula laabo meeshaa geenaysid gee. ninka marka meesha uu iska dhiibi lahaa waxa uu u raftay sida tan ee baldaawasho wacan. sanad guuradeenii si fiican bay u dhacday. sanad guuradeena de xabib surprise ka sonay markaan ilaaga la kuu sheegay xafladan waxaan u sameeyay sanad guuradeena waa dilowday mar adiga madaxaaga ahayd de markay malma soo dhaafeen bad madaxaaga ahayd xabib. sidaad muuqaalkaba kusoo aragteen waxa uu marka ninkaani ka jirtay xaflad habeen hore dhacaysay ama xalay may ahayd mise habeen hore dhacaysaa jirtay. muuqaalka cajiib uu lahaa. ninkii odaga ahaa markii ay xafladda soo dhamaatay dibadda la yimid waa markii ugu horeysa maraykanka oo kulul ah arkayo. subxaan allah, waa la yaabay oo adduunkii oo dhan ayaa qiiqayo oo balaayada taagan inay tahay laga yaabayo. waa lasoo kululaado dibadda laisla yimid, waa isbafinaysay ama waa isbabisay wadato waa arkayseen. waxa ay markaasi oo ninkan iska soo jaray waa soo damaashaadnay oo waqti ayaa soo qaadanay. waqtigaana wuxuu ahaa surprise oo ahaa oo waxaa ugu talagalay xafladii sanad guuradii nolosheena midowgeeda kasoo wareegatay ayaa ay ku beegnayd. duqa waa lagu qabtay mayaala joog maalmo dhanay soo dhaaftay. xaajadan hadda aa sheegaysid maalmo dhanay soo dhaaftay. okay, markii lagugu qabto xaaji mursalow ma isdhiibtid saaxib? waa la isdhiibaa oo waxaa la yiraahdaa yacni anu ahaan waa niyeystay maadaama aysan habeenkaasi ku beegnayn. waa niyeystay oo waa isdhiibayaa la yiraahdaa. waxaan anugu isleehaa isku raaci maadaama uu habeenkani iyo waqtiga midowgeena kasoo wareegatay ay wax yar u dhexayso. anugu waxaan islahaa caawa bal ka dhigo, caawa bal si weyn aad usoo yacni ciyaarteene caawa bal u niyeysta saas inoo dhehayd. duqa wuxuu iska soo jaray adigaaba kugu talagalayba oo caawa adigaa waqtigaagii ahaa. adigu alcamuum waa la jiijiitamay, waad aragteen lamaanahani. marka sababta aan muuqaalkan usoo qaatay waxa ay tahay haddii aad bahasha farxadda la yiraahdo aad doonaysid waxaa qasab ah in aad horta marka ugu horeyso samir la muujiyo, labada qofna inay isku xirnaan muujiyaan. labadan lamaane dadka intooda badan waxaa laga yaabaa inay ka arkaan hal dhinac waxa ay soo mareen rafaada. haddii maanta dibaa loo sameynaa la dhaho hal filim oo musalsal ah oo markaasi 4 bilood ama 5 bilood ama 6 bilood soomaalida loo daari karo waa ay kasoo bixi karaan. haddii taas laga soo tago buug ayaa laga qorayaa haddii la yiraahdo macnaha waxyaabaha ay ka qabtaan ama waxyaabaha ay sameeyeen oo wanaag ah oo in lagaga daydo ay mudan yihiin. haddii la yiraahdana buug waa laga qori karaa oo ay dadka madadaalo u noqonayso waxna ay ka qaadan karaan. dadka intooda badani waxa ay eegaan oo keliya ama ay rabaan ama ay raadiyaan in iyaga xumaan loo sameeyo. weliba xitaa labadan lamaane way sii kala culus yihiin. miisaan haddii la yiraahdo way sii kala culus yihiin oo waa naf qura oo maanta inaan kala qaado ma fiicna. oo lamaane isku jeclahay waa wada jirkooda, laakiin haddii la yiraahdo ha la kala qaado waxaa mug iyo miisaan yeelato oo markaasi isagana ka furfuran oona ka dhexgalis badan hodan cabdiraxmaan oo aan ognahay in arrimo badan oo taagnaa iyo caqabado badan oo maanta dad dhan Soomaaliyeed ay salaanta iyo iskaga qaadi lahayn qofkii dhameeyay inay iyada tahay.
qofkii wax qabtay inay iyada tahay, qoftii dadkaas qofkii isku keenay inay iyada tahay. haddeertanna waa ku leeyahay show ma dhaco oo xafladi ma dhacdo oo markaa aroos looma heeso ilaa iyo inay hodan kasoo dhex muuqato mooyaane lama qabto barnaamijyadaas. sababta ugu weyna ay taa u dhacaysana waxa ay tahay waa qofka keliya ee isku keeni karto. haddii aad u dirtid 20 fanaan oo caalamka daafihiisa kala joogaan, haddaa u dirtid way kuusoo xaadirin kartaa. qof kaloo awoodi karaa soomaali kuma jiro maanta. xitaa fanaaniinta kala taga, meeshaa rabtiin taga, soo ogaada, soo baara, si fiican usoo ogaada. hodan cabdiraxmaan inta fanaan ay isku keento qof isku keeni karaa malahan. hadda ka hor waxaa dhacday qays iyo waxa yani barnaamijyo diyaarsanayeen iyo sharma oo markaasi asagana cusbaa. ma aaminaysaa qofkii barnaamijkaasi in la mideeyo oo hal dhinac laga soo wada jeesto oo hal dhinac loo qabto oo hal si loo qabto? qofkii ka dambeeyey iyaday ahayd oo weliba xitaa intay yani gashay kala tuurtay barnaamijka ka dhigtay hal barnaamij, iyadoo aanan dagaalamin, iyadoo aanan si xun wax u samayn, iyadoo aanan qofna aynan ka caroonin, iyadoo aanan qofna waxba samaynin, yacni oo aanan gaar u caroonin, ayay meel isugu wada keentay. showgiina waxa uu u qabsamay sida ugu fiicnayd oo markaasi loogu talagalay, oo markaa ugu fiicnayd ma loogu talagelin, sida ugu fiicnayd loo qabsaday. qof walbana iyadoo qanacsanay habeenkaas waqtigeeda soo dhamaysatay. ka warama bal haddii aan iraahdo dad badan oo isdagaashan oo xitaa dadka qaar aynan muddo isa salaamin ee meel isugu wada keentay, waa ogeedeen oo waa ka markhaati tihiin. tiim iyagoo horta iyaga markooda hore 2-3 qof oo isku xiranay ahaan jireen iyada, laakiin inta badan way ku yaraan jirtay. laakiin tiim waxaa jiri jirta oo maraykan oo isku xirnaan jireen oo ay ka mid tahay farxi kawyare iyo dalmar yare iyo dad saas oo isku xirnaan jireen. waa lasoo kala dhexgalay, waa la kala irdheeyay, qof walba meela loo tuuray. xitaa Nicimo Jookara ku jirta, laakiin adigu ma badnayn, laakiin labada dadkaas kaleeta isku badnaa oo fanaaniinta. waxaa dhacday in la kala irdheeyey, dadkii qofkii isku soo celiyo meel isugu keeno waa iyada. horta niyo maalintaada ahaataya iyo ay ahaanina aniga ku hambaleynaynaa mar walbo. guurkaagana ha kuu adkaado, gurigaagana ha dhisnaado, noloshaadana quruxdan ha kuu ahaato, shabshableyntan weligaa ku jir, dadka ugu saree. waxaad mar walba ku dadaashaa sidaa hadda u dadaalaysid. dunidan aa arkaysa magacuna laga qaadaa, maal waxba ma taro, wuu iska soo dhammaan karaa. laakiin kan aan weligii dhammaan waa magaca. kan wanaagga marka aad qabatid aanan weligaa lagu xusi doonana waa wanaagana hadda wadidaa kuu rajeynaa. hodane waxaa rajeynaa inaa marka mar walba ahaatid qof sidaan hadda ay dadka iskugu hayso ina ahaatida rajeynaa. reer maraykan keliya ma ahan, dad badan oo fanaaniin ina isku haysadaa lagaa rabaa. ingiriiska ta ka dhacday ee maraykan ka dhicin. ingiriiska waa aragtay oo lagu kala irdhoobay, 1 iyo 2 isma arki karaan. fanaaniinta mid walba laabtoogiisa dhinac wataayo meeshiisa wuxuu ka qabsadaa. waxaad aragteen in showgii dhammaa ee markaasi qabsatay ugbaad aragsan ee imaanin fanaaniin fara badan. waxaasna waxaa u sababa kala irdheynta ku jirto. marka mar walba waxaa ku leeyahay sidaa u haysa dadka isugu hay. guuleysta ayaan idin leeyahay reer maraykan haddaad tihiin, dadku dayasho mudanaa tihiin, gaar ahaan in adiga lagugu daydaa mudan tahay. guuleysta ayaan ku leeyahay adiga xaajigaaga oo meel sare gaara, noloshiina ha idin qurux badnaato. aad baad umahadsantay reer sariicaado. haddii idinkana halkaas soo gaartay videoga noo like gareya, siina sheer gareya. intaan mid xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tegayaa nabaadiino.